Zaylac magaalo xeebeed taariikhi ah oo ku taalla waqooyi bari gobolka Awdal waxa ayna aad ugu dhowdahay waddanka Djibouti oo u jirta ilaa 120 kiiloomitir. Magaalada Zaylac oo ah mid qadiimi ah oo aad u taariikh dheer ayaa waqti xaadirkan magaalo madax u ah gobol cusub oo ay Somaliland samaysay oo la yiraahdo Selel. Zaylac waxaa loo aqoonsan yahay inay jirtay tan iyo waqtigii ka horreeyay soo bixitaankii diinta Islaamka, midaasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah goobaha ugu taariikhda dheer ee qaaradda Afrika, iyada oo ay ku yaalaan meelo fara badan oo taariikhi ah hase yeeshee ka turjumaya taariikhda geeska Afrika, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaa laga soo xigtay sahmiyayaal Rome iyo Greek ka yimaaday in qarnigii koowaad Zaylac dhisneed isla markaana lahayd maamul caasimadeed iyo hoggaan sare oo heer sare ah. soo dhawow daawade, haddii aad ka hesho muuqaalka fadlan like garee si aynu u soo badino. mahadsanid. tan iyo horaantii soo bixitaankii diinta Islaamka, magaalada Zaylac waxay noqotay hoy waxbarasho, ganacsi, dhaqan, ilbaxnimo, xadaarad iyo sidoo kaleete maamul boqortooyo. qiyaastii qarnigii 7 ilaa qarnigii 8 ayaa diinta Islaamka ku soo fiday magaalada Zaylac oo waqti kooban gudaheeda ku noqotay hoyga diinta ee guud ahaan qaaradda Afrika, gaar ahaan geeska Afrika. bartamihii qarnigii 9 ayaa magaalada Zaylac waxay aas-aas iyo saldhig u noqotay bilowgii boqortooyadii Cadal, midaasi oo ka talin jirtay deegaanadaas muddo qarni ah ilaa laga soo gaadhay qarnigii 14aad markii ay gaadhay meesheedii ugu sarreysay ee deegaanada geeska Afrika. waqtiyadii ku xigay waxaa caasimadda qadiimiga ah la wareegay boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo xukumayay tan iyo goortii ay kala wareegeen boqortooyadii Ingiriiska. magaalada Zaylac waxaa soo booqday qoraagii caanka ahaa ee Ibn Battuta 1330kii, halkaasi oo uu ku tilmaamay inay ahayd magaalo weyn xilliga. qarnigii 16aad waxa ay magaalada Zaylac ahayd caasimadda maamulka caanka ahaa ee Cadal. qoraalada laga hayo Zaylac waa ay fara badan yihiin, balse aan ku soo koobno laba socdaal oo ay ku soo kala mareen laba nin oo la kala oran jiray Johnston iyo sidoo kaleete Richard Button. Richard iyo Johnston labaduba waxa ay soo mareen zamankii uu ka talinayay magaalada Zaylac Sheekh Sharmarke Cali Saalax oo magaalada ka ahaa gudoomiye muddo dheer. labada ninba waxa ay ku tilmaameen magaalada Zaylac inay ahayd magaalo weyn oo uu ka socday ganacsi aad u xoog badan. sida ay ku soo bilaabatay iyo goorta la aasaasay magaalada Zaylac, taariikhyahanadu waa ay isku khilaafsan yihiin, laakiin waxaa la isla ogol yahay in magaalada Zaylac ay jirtay qarnigii koowaad, waqtigaasi oo ay ziyaarteen badmareenno u dhashay Roomaanka iyo Giriiga. labadaasi dowladood ayaa xilligaasi waxa ay ahaayeen dowladaha ugu waaweyn caalamka ee socdaallada ku kala bixin jiray daafaha dunida. warbixin laga soo xigtay raggaasi ayaa lagu ogaaday in magaalada Zaylac ay ahayd mid aad u dhisan, maamul iyo kala dambeynna leh, ganacsi aad u ballaaran ka socday, isla markaana lahayd mid ka mid ah xadaaradihii ugu sarreeyay ee waqtigaasi. magaalada Zaylac aad ayay u awoodeysatay waqtiyadii ku xigay, isla markaana ku fiday deegaanada jaarka la ahaa, kuwaasi oo ay dagaallo culus la gashay markii dambena ay qabsatay. saldanadii Cadal oo micno ahaan lagala jeeday cadaalad, waxa ay ahayd boqortooyadii xukumi jirtay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Awdal ee waqooyi Soomaaliya, meelo ka mid ah dhulka Itoobiya iyo Djibouti ilaa laga gaaro Eritrea. boqortooyada Cadal waxa ay ka mid ahayd boqortooyadii ugu taariikhda dheereed uguna awoodda weyneed ee geyiga iyo deegaanada ay dadka Soomaalida ah degganaayeen. inkastoo boqortooyadu ka bilaabatay magaalada taariikhiga ah xuduntana u ahayd ee Zaylac, waxa ay saldhigyo waaweyn ku yeelatay magaalada Harar iyo nawaaxigeeda. sanadii 1415 ilaa 1577 ayaa boqortooyada Cadal ugu awood badnayd goortaasi oo ay maamuleysay in ka badan 5,000 oo kiiloomitir oo isku weer ah. deegaanada hoos yimaada degmada Zaylac waxaa lagu cabiraa dhul ahaan in la eg ilaa 18,566 kiiloomitir. dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 105,000 oo qof. sida caadiga ah, deegaanadani waxa ay hoos yimaadaan oo xarun u ah magaalada qadiimiga ah ee Zaylac. magaalooyinka kale ee hoos yimaada waxaa ka mid ah Caashacado, Xariirad, Jidhi iyo sidoo kaleete Lawyacado, kuwaasi oo dhammaantood ah magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan degmada Zaylac.
maamulidda iyo talada deegaanadaasi maanta oo la joogo waxaa in badan isku haysta maamulka Somaliland, maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhammaantood sheeganaya in ay iyaga maamulaan. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa taariikhdii magaalada Zaylac tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale. Waa anigoo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.